sida dabcan ay dad badan ka dharagsan yihiin TikTok waa goob tahluuko khaasatan marka la eego sida ay Soomaalidu adeegsato gabar Soomaaliyeed oo ku jirta da'da 20-meeyada misna ku dhaqan dalkaasi Mareykanka oo la siiyay magaca Zara oo aan ahayn midkeeda rasmiga ah ayaa waxa ay ka sheekaysay in lacag aad u far badan oo ay jaamacad iskaga bixin kar lahayd ay kaga baxday wax lagu sheego dagaalada qabiilka ee TikTok balse markii dambe oo ay ogaatay arrin kale oo aan dad badan la socon waxa ay wareysiisay BBC-da qaybta Ingiriisiga ee loo yaqaano BBC World Service ciyaartan oo lagu magacaabo ciyaarta qabiilka waxa ku soo xirma kumanaan kun oo u badan dad sufaha ah ama wax magarato iyadoo inta aanu tartan ku bilaaban iyo kadibba la soo bandhigo hees rab ah oo qabaa'il kala duwan lagu amaanayo qaarna hoos loogu dhigayo ujeedkuna waa in dadweynaha daawatada ah laga helo waxa loo yaqaano giftiska waxaana ugu daran waliba in dadka tartamaya ee muujinaya in ay iska soo horjeedaan ay yihiin dad mararka qaarkood heshiis ah oo hoosta iska og iyada oo wareegyada oo 5 daqiiqo soconaya qofka guuleysta uu qaato hadiyadaha badankood walow laftiisu uu helayo boqolay aad uga yar xisaabta magaciisa lagu bixiyay dhacdooyinkan oo ay agaasimaan dad inta badan ku dhaqan Yurub ama Mareykanka ayaa waxa si hordhaca mararka qaarkood loo sii xayeysiyaa muddo dhowr bilood ah haddii aan wax yar ka taabano hadiyadaha lagu bixiyo TikTok midda ugu qaalisan waa TikTok Universe oo ku fadhisa ilaa $500 isla markaana goysa ilaa 50,000 oo ah qadaadiicda TikTok waxa loo yaqaano TikTok coins waxaana shaashada ku fidinaysa dad ku ciyaaraya music mid in yar ka raqiisan balse lafteedu qaali ah waa libaaxa oo Soomaalidu inta badan ay aad u jeceshahay waxaana ku kaca ilaa $400 isagoo shaashada ku soo fasaxa libaax gurxamaya ama qaarkood libiri ka soo baxaya dusmo biyo hoostooda dadka waxyaabahan ku qaarama ee loo yaqaano giftarka ayaa mararka qaarkood waxa ay bixiyaan qiimo ka sii hooseeya kuwa aan soo sheegnay sida in qofka tartamaya madaxiisa ku tuuraan koofiyad cowboy ah shaarbo waaweyn baqbaqaacas ama bocor haddii aanu Zara u soo noqono waxa ay BBC-da u sheegtay inay ka mid ahayd dadkii hadiyadaha bixinayay iyadoo sida u yeelaysa in sida ay tiri ay difaacdo qabka qabiilkeeda aad bay ila xiiso badnayd inta badanna reerkayga ayaa guuleysanayay ayay ku shaafeertantay balse waxay sheegtay inay ku bixisay ilaa $7,000 oo ah lacag ay jaamacadeeda ku bixin lahayd iyadoo sheegtay in waalidkeed ay muraara dilaacayaan haddii ay arrintan ogaadaan balse waxa ay sheegtay in intii ay ku jirtay waxan ay u qabatintay sidii daroogo oo kale eelkeeda markii dambe waxa ay xaqiiqsatay in xaalku aan u qurxoonayn sida qabiilka iyo qabka la difaacayo ay sheegtay waayo mid kamida dadka tartamadan ka qayb gala oo aad u caaya haweenka ay sheegtay inuu u soo diray fariimo hanjabaad ah oo uu ugu sheegayo inuu baahin doono muuqaaladeeda oo la macmalay misna qaawan haddii aanay lacagta dhiibin waxay raadinayaan xogtaada iyo xogta qoyskaaga kadibna waxay kugu hanjabayaan in ay ku baahin doonaan ayay tiri Zara qiyaas haddii ay qoyskaagu arkaan sawiradaadii oo qaawan waayo iyagu ma oga in lagu sameeyo waxa loo yaqaano Photoshop ayay tiri iyadoo waliba intaa raacisay in markii ay TikTok u dacwootay aan waxba loo qabanin walow ay BBC-du markii dambe la xiriirtay TikTok kuwaasoo u sheegay in koontada ay gabadhani ka hadlayso la xiray ama la xanibay Mustafa Ahmed oo ah daraasadeeye dhinaca ammaanka ah oo inta badan diiradda saara dalalka Geeska Afrika ayaa waxa uu sheegay inay la yaab tahay in dadkii ka soo cararay dagaalada Soomaaliya iyo xiisadaha iyo xasarada ka taagan ee markii ay galbeedka yimaadeen ay iyagu noqdaan qaybta ugu badan ee ka shaqeysa meertooyinka qalalaasaha cunfiga iyo qabyaalada ah ee ka jira gobolka Geeska Afrika ugu dambeyn Zara ayaa waxa isweydiinaysaa sababta ku xambaartay inay kharashkii ay sida adag ku shaqaysatay ay ku bixiso dadkan ku tartama TikTok oo ay ku sheegtay qaar badan oo ka tirsanay in aanay xitaa u quudin waa mahadsan tahay ama aanay ahayn dad abaal leh balse su'aasha milyanka dollar ah ee meeshan taala waxay tahay maxay Zara ka baratay jaamacadda ay dhiganaysay iyo sidoo kale sanadihii badnaa ee ay ku noolayd dalka weyn ee Mareykanka oo haya dad ku dhow ilaa 400 milyan oo ka kala socda quruumaha adduunka oo idil misna wada nool halka iyadu ay qarashkeedii $7,000 ahaa ay ku khasirtay si kala qaybinta Soomaali oo ah hal qabiil iyo taageerida mid qaadan oo ay iyadu qirtay in aanu xitaa waa mahadsan tahay u quurin kadibna xitaa isku dayay inuu qarash xoog ka qaato Maxamed Xaaji Hadal Sami TV